webiga Furaat waa mid ka mid ah goobaha taariikhiga ah ee bani'aadamku weligii uu ku noolaa. Bilowgii taariikhda bani'aadamka waxa uu nolol bani'aadamka uu ka samaysan jiray goobaha biyaha leh sida hareeraha webiyada iyo meelaha sida aadka webiyada ugu dhow, waayo suurtagal maaha bani'aadamka in uu noolaado biyo la'aan. Sidaasi darteeda webiyada iyo hareerahoodii waxaa daa'ima laga helaa raad taariikheed oo aad u fog. Si gaar ah webiga Furaat waxaa jiro xadiis nebiga nabadgeli naxariis korkiisa ahaatee ka soo arooray kaas oo tilmaamayo dhammaadka dunida, yacni saacadda qiyaamaha. Astaamaheedii ugu waaweyn mid ka mid ah waa biyaha webigani oo qalala. Waxa uu nebiga nabadgeli naxariis korkiisa ahaatee uu yiri qiyaamuhu ma dhici doono ilaa webiga Furaat uu ka qalalo, yacni buur dahaba webigani hoostii ilaa ay ka soo baxdo. Dadku waxay isku dili doonaan buurta dahabka ah ee webigani hoostii ka soo bixi doonta. Boqolkii qofood ee halkaa aada 99 qofood ayaa laga dili doonaa. Hal qof oo keliya ayaa boqolkaa qofood ka badbaadi doona. Dadku waxa ay halkaa u aadayaan iyaga oo dhahayo laga yaabee in aan noqdo kan badbaadaya ee waxyaabaha nafciga leh halkaa ka soo qaadan doona. Riwaayad kalena waxa ay ku dartay in nebiga nabadgeli naxariis korkiisa ahaatee in uu dhahay qofkii xilligaa joogow waxba yuusan halkaa ka soo qaadanin webigaa hoostii haddii dahab uu ka soo baxo. Haddaba dhammaan muslimiinta oo dhan sanad waliba waxa ay indhaha ku hayaan heerka biyaha ee webigani. Marmarka qaar biyahani webiga waxa ay noqdaan kuwa aad u yaraaday heer la oran karo webigii wuu qalalay. Dhowr bil kadibna biyaha webigani sidii ayay u soo bataan, yacni markii uu qalala kadib. Laakiin marka graafikiska hoos u dhaca webigani sanad ahaan loo soo qaato, waxaa si cad ah loo arki karaa in webigani si xowl ah inuu u qalalayo. Ka hor inta aanan mawduuca webigani u gudagelin ka hor, waxaa muhiim ah in aan wax badan ka ogaano webigani Furaat halka uu ku yaalo iyo wadamada uu maro iyo xaaladda maanta uu ku sugan yahay. Webigani Furaat waxa uu ka soo bilowdaa Turkiga, waxa uuna maraa 3 wadan. Turkiga ee uu ka soo bilowdo Ciraaq iyo Suuriya. Faracyo yaryar ah oo sida aanan u weynin ayuu sidoo kale xuduudaha Sacuudiga, Iiraan iyo Kuwait mara. Webigani maanta 3 wadan ee uu maro ayaa waxa uu u yahay il tamar iyo biyo ay ka helaan. Waxaana webigani laga sameeyay santraalo tamarta laga dhaliyo. Sidoo kale waxaa biyaha webigani wadamada uu maro lagu waraabsadaa beeraha, balse su'aasha ugu weyn ee qof walba uu isweydiinayo ayaa waxa ay tahay buurta dahabka ee webigani hoostii ka soo bixi doonta. Talow ma buur dahab ahba ama waxaa loola jeedaa majaas sida wax qiimo leh oo dadka oo dhan ay rabaan miyaa halkaa ka soo bixi doona? Inta badan waxaa iska dabiici ah in dhulka meelo ka mid ah in lagu arko waxyaabo qaali ah sida dahabka, diamond-ka iyo waxyaabaha la midka ah, sida dhagxaan buuraha oo kale oo dahaba in meel lagu arko. Dhowaan ayaa dalka Congo waxaa baadiyihiisii meel ka mid ah laga helay buur dahaba. Dadkii reer Congo ee ka war helay buur dahaba in agtoodii ay ku taalo, qof kasta waxa uu bilaabay in dhanka iyo buurta yarta inuu u soo cararo. Cid waliba ee tuuladaasi ku sugneed, caruur ilaa ciroole, qof walba gacantiisii ayuu bilaabay inta ay qabato. Waxa uu ku dadaalay in ciidaasi dahabka lagu sheegay inuu aruursado. Dhulka aynu ku noolnahay hadba meel ka mid ah in mar uun qasnado dahaba nooca ay ahaadaanba in lagu arko waa wax aanan la yaab lahayn. Laakiin dadka badankoodii maadaama aqoonta baarista waxyaabaha qiimaha leh aysan lahayn, badankoodii iyaga oo arkay xitaa ma ay fahmaan. Laakiin xadiiska nebiga nabadgeli naxariis korkiisa ahaatee ee ku soo arooray webigani Furaat waxyaabaha ka soo bixi doono ma dahabba ama waa ashyaa kale oo qaali ah, waxa ay aqoon-yahanada u sameeyaan tafaasiir kala duwan. Sidoo kale waxaa xusid mudan in dhulkani bariga dhexe gaar ahaan Ciraaq, Suuriya iyo hareeraheedii in dowladaha waaweyn ee adduunka oo dhan in garoon lagu ciyaaro inuu u yahay. Sida Xalab, Suuriya meel ka mid ah oo dhan ayaa ku burburtay. Fidno waliba nooca ay haatan laga soo bilaabo fidnadii ugu horeysay ee dagaalkii muslimiinta ilaa iyo maanta, juqraafigani dhib waliba ayaa ka dhaco. Ugu dambeynna
dajaal waxa uu ka soo bixi doonaa juqraafigani yacni fitno waliba iyo dagaal waliba dhulkani sida gaarka u barakaysan maadaama ay ka soo baxayaan indhaha adduunka oo dhan in bariga dhexe uu ku hayo waa waxa asalka u ah dhulkani bariga dhexe xikmadda ku jirta alle un ayaa si gaar ah u garan karaa maantase waxaa cajiiba in biyaha webiga Furaat si aanan caadi ahayn in hoos uu sii dhacayo hadba sanadba sanadka ka dambeeya tani waa astaan ka mid ah astaamaha waaweyn ee tilmaamayo dhawaanshaha saacadda qiyaame iyo soo bixitaanka masiixu dajaal haddaba marka biyaha webigani ay qalalaan xilliga qasnada ku qarsan webigani hoostii ay soo baxdo dadka oo dhan miyaa gurigoodii ka soo bixi doona si ay u soo aadaan halka ay ka soo baxday buurta dahabka ama dadka halkaa ku nool oo keliya miyaa halkaa aadi doono waa wax aanan la saadaalin karin laakiin qof walba halka uu joogaba waxa uu jeclaan doonaa in halkaa uu aado si uu wax uga soo qaato waxaa xaqiiqa wax dadka si aadahay ugu baahan yihiin welibana ay isku dili doonaan in halkani ay ka soo bixi doonaan dagaal u dhaxeeya dawladaha waaweyn ee adduunka miyaa halkaa ka dhex qarxi doona yacni dadka dhiman doona ma dad ku hoos dhiman doona dagaalka dawladaha waaweyn ee haddaba juqraafigani bariga dhexe ku dhex sugan ama dadka shacabka miyaa halkaa isku dili doona waxaa si waadaxa loo arki doonaa marka fitnadani ay soo baxdo dhulka aynu ku noolnahay taariikh ahaan waxaa soo maray webiyaalo badan oo qalalay noqdayna dhul caadi ah oo maanta la maro sidaasi oo kale webiga Furaatna taariikhdii uu qalali lahaa waa mid si aad ah u dhow weliba adduunka oo dhan ayaa indhaha webigani ku hayo webigani Furaat muslimiinta oo keliya ma ay sugayaan sidoo kale kirishtaanka kitaabkoodii Baybalka iyo Yahuudda xog ku saabsan webigani ayaa kutubtoodii ku qoran dad waxaa jiro qasnada webigani hoostii ka soo bixi doonta ee nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee uu sheegay ku fasiray in shidaalka ay tahay maadaama shidaalka uu yahay mid dhiig badan uu ku daatay dawlado waaweyn ay ku dagaalameen dawladaha waaweyn ee adduunka sababaha inta badan bariga dhexe agagaarka Suuriya iyo Ciraaq iyo Afghanistan colaad ay uga hurayaan iyo saldhigyada Mareykanka ee dhulkani ku yaala waxa ay kordhinaysaa ihtimaalka cabsida dagaalka muslimiinta iyo gaalada in halkani uu ka soo bixi doono ama in qasnada dahabka webigani hoostii marka ay ka soo baxdo dagaal weyn oo aanan loo kala harin in halkani uu ka qarxi doono maanta webigani si aanan caadi ahayn ayay biyihiisii hoos ugu socdaan dhowrkii sanaba webigani Furaat waxa uu dhumiyaa biyo aad u badan sida webigani 20 sano ka hor uu ahaa maanta ma aha waxa uu webigani uu dhumiyay biyo aad u badan iyo xajmi badan oo webigani uu ku fadhiyay tanina waxa ay daliil u tahay in sanadba sanadka ka dambeeya in webigani uu sii naaqusayo dhawaanshaha saacadda qiyaame si muslimiinta u baraarugaan dabcan webigani marka uu qalalo qasnada dahabka ee nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee uu sheegay marka ay soo baxdaba durbo qiyaamahu ma dhici doono balse waa mid ka mid ah astaamaha waaweyn ee nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee uu inoo sheegay qiyaamaha hortii waxyaabaha dhici doona inay ka mid yihiin laakiin dadka ma ku baraarugi doonaan ama waxyaabo iska dabiici ah oo dhulka meelo ka mid ah lagu arka wax un ka mid ah inay yihiin miyay ku fasiri doonaan ama si xaqiiqa xadiiskani ayay soo xusuusan doonaan waa wax waqtiga iyo xilliga lagu ogaan doono